dawladaha dariska ah qofku inuu ku xajiyo 1600 annana imsa ugu dambeysay oo lagu xajinay 5500 ilaa 6000 in la gaaro qof Soomaaliya ayuu gaaray marka waa isbaaro loo dhiganaya marka in qofkii Ilaahay uu soo caabudo xajkii guto ayaa isbaaro loo dhiganaya marka waa sad an sabiilillah caadi ah oo dadka laga celinayay inay soo cibaadaystaan oo Ilaahay caabudaan ayaa loo diiday meelo badan kuwana masaajidka bay noo diideen inaan ku tukano dadkii waxay dhahay waa la leynaya kuwana kanayba isbaaro dhigteenba xajkii bay dadka u diideen oo inay Ilaahay soo caabudaan ayaa iyaguna u daad marka ummad dhinac kasta laga ciqaabay ayay noqotay ummadda Soomaaliyeed waxa inta ka sii daran waxa la rabaa xajka in la siyaasadeeyo xajku siyaasad ma galo cibaadadu siyaasad ma gasho rukn min arkaan al-islam siyaasad ma gali karo meel la siyaasadeyn karo ma rukn min arkaan al-islam oo salaadii shahaadateynki iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajka siyaasad ma gali karaa lama siyaasadeyn karo lama kooxayn karo lama guruubayn karo ma noqonayo hebel iyo waxaas ma aha waxaa la rabaa xajka dadka muslimiinta ah in loo fududeeyo waxaa la rabaa in Ilaahay loogu dhawaado waxaa la rabaa in lagu cibaadeysto janno lagu galo oo deedna dadka loo khidmeeyaa la rabaa markaynu u tagno dadka xajka jooga muslimiinta ah cuntayna la daba carara ajri ayuu ka raba annana shilin kala had iyo cadaab iyo inta ka dhufso ayaan anagana la daba soconaa dadka marka waxa loo baahan yahay in aan isbeddelaa loo baahan yahay ma banaana in la tasyiisiyo oo siyaasad la geliyo xajka mana geli karo